الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha waa walaashin Xaliima oo barnaamij mar kale idin kala qayb qaadanayso boga Suhayba. walaalayaal waxaan rabay maanta mawduuca idin soo bandhigayo inuu ahaado saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun iyo diinta islaamka waxay ka qabto. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. saaxiibaha iyo dadka aadka isku jecel barkood barka kale ay cadow u yihiin maalinta yawmal qiyaamo illa kuwii muttaqiinta ahaa mooyaane. waxaa laga soo reebay kuwa Allah ka cabsado. qofka saaxiibka wanaagsana mar walba waxa weeyaan qofka ku horseeda wanaaga ku tuso Ilaahay iyo rasuulkiisa waxay jecel yihiin ku hor qaado waxa khayrka ah ka reebo xumaanta ka celiyo kana hor istaago inaad ku dhacdo xumaan. nabiga kaleey salaatu wasalaam asaga oo ka bixinayo tusaale ayaa wuxuu yiri qofka saaxiibka wanaagsan iyo qofka saaxiibka xun waa sidii qof wado cadar iyo qof dadkan dabka iyo biraha buufiyo kaleeto. qofka cadarka haya ee cadarka ka ganacsado saddex xaalamid weeye, ima inuu qofka hadiye ahaan ku siiyo ama inaad ka gadato ama inaad caraf wanaagsan ka hesho inta ag taagan tahay. qofkan kale ee biraha iyo waxan tumayo asaga ima inuu dharka ka gubale aanu meesha dab baa lagu shidayaan iyo inuu urti iyo caawixii la shiilay aad ku rafaado. laba mid ayaad ka dheftaa. saas ayuu nabiga kaleey salaam ku kala miisaaliyay qofka saaxiibka wanaagsan ah iyo qofka saaxiibka xun ah. marka qofka muslimka ah wuxuu dareemi karaa ahmiyada islaamka uu leeyahay saaxiibka wanaagsan. qofka bani'aadamka waxa wax lagu tusaa oo loogu sameeyo si uu fahmo tusaalaha. Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa hadana mar kale wuxuu ku leeyahay ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. waxaa uu ka qoomamoonaya qofkaasi maalinta yawmal qiyaamo ayaa la joogaa wuxuu leeyahay hoogayo baayay maxaan uga dhigtay hebel saaxiib, maxaan uga dhigan waayay rasuulka iyo ummadii wanaagsaneyd ee raacday saaxiib on hebel saaxiib uga yeeshay. wuxuu iga weeciyay oo iga leexiyay dariiqiisu banaa iyo wanaagyadii buu iga leexiyay wuxuuna ii horseeday jahannamo iyo meelo daran. shaytaankuna mar walba qofka uu hungoobiyaa aanu maalinta intuu ku soo qaaday oo saaxiibka shaytaanka aanu shayaatiintu waa laba waa shayaatiin al-insi wa shayaatiin al-jinn. shaytaan insi ayaa la saaxiibtay asaga ayaad ku dayatay wax walba sameeyay ayaad kaga tusaale qaadatay muxuu ku hogaamiyay ilaa naar buu ku hogaamiyay. maalinta yawmal qiyaamo markii la imaadana minbarka ay fuula wuxuu leeyahay إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. خطبتي dheereed ayuu jeedinaa wuxuu ku leeyahay ilaahayna uu ku yeedhay annaga ku yeedhay adiga ay soo daba kacday anigu waxa awoodana kuma sheegan inay xooga adiga naftaada ka adkaan weydo ay soo daba kacday laakiin maalinta adiga waxba kuma tariso khudbadiisa qoomamana adiga waxba kuma tariso. marka qofka muslimka waxa looga baahan yahay inuu mar walba qiimeeyo qofka uu la saaxiibayo. yaa weeyaan qofka la saaxiibayso ma yahay qof xumaatada ka reebayo, ma yahay qof ilaahay kugu xiray jidkiisa. waxaad akhriyayso buuga waa saaxiib, qofka la socoto waa saaxiib, qofka nolosha la wadaagayso waa saaxiib. xaaskaaga ama ninkaada waxaad ku doorataa akhlaaqda wanaagsan iyo diinta islaamnimo inuu ku hogaaminayo. qofka aad fasalka ama la fadhiisanaysa ama aad la sheeko wadaagaysa ama la shaacabaysan waxaad ka dhigataa qof wanaagsan oo diintii islaamnimada kugu hogaaminayo oo intuu kaaga sheekeynay wax xumaata ah ay yartahay ama aadan kaaga sheekeyn wuxuu kugu hogaamiyay ay tahay wanaag. buugaad akhriyaysa sidoo kale weeyaan buug lala saaxiibo iyo kitaab lala saaxiibo waxa ugu wanaagsan kitaab Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah oo la khitaabayso wa ilaahay oo la sheekaysanayso la khalwoonayso oo hadalkiisii hayso. waxaa ku xiga axaadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam. akhri kitaabta sunanta waxaan ugu badatay inaan riwaayado af ingiriis ah oo af carabi loo soo bedelay ama af Soomaali loo soo bedelay
sheekooyin maalaa yacni ku qoran tahay inay moodo ka noqotay dhalinteeni inay isugu faanaan waxaan akhriyay intaasoo sheeko waxaan soo dhamay intaasoo sheeko waxaad ogaataa haddii aad luqad u raadinayso luqo waxay ku dhan tahay af carabi af soomaaliba mid ka tiraahdo kitaabka Allah subxaanahu wa tacaala haddaad rabto dictionary asagaa kugu filan haddii aad rabto waayo aragnimo asagaa kugu filan lianna wuxuu ka hadlayaa wixii tagay iyo waxa iman doono mar walba ood kala furtana icjaab iyo waxaad kala kulmaysaa Allah subxaanahu wa tacaala badiic khalqihi siduu u sameeyey siduu kownkan ugu talagalay lianna waa qofkii kuumay mar walba adiga maskaxdaada wax inuu kugu kordhiyo mooyaan waxba kaama dhimsan marka waxyaabaha la saaxiibayso bani aadam hadduu yahayna waxaad ka doorataa dadka wanaagsan haddaad kitaab akhriyaysan waxaad doorataa kitaabta Allah subxaanahu wa tacaala kugu xidhayso adwaane iyo wanaag ka helayso mar walbana khibrada aad ka helayso walaalayaal aad baan idin salaamaya dhammaantiin waxaan idinkula dardaarmayaa inaan wanaagga iskugu faro xumaatadan iska qabano kib goynta badatayna iska dayno qofkaana wanaag kib goyn kuu dhahaynin waxa faa'iido ma laha aakhara waatuu kuu sheegaya shaytaanka hadda markuu kib goyn ku dhahay maalinta yawmal qiyaamana wuxuu ku leeyahay anigu maanan ku soo khasbin ee adaa sidan samaysay yaa lagu sirin waxaad ku qiimaysaa mar walba qofka walaalka ah waa kawaanada ku siiyo waxa xumaantana gacanta kaa qabto waxa wanaagana ku yiraahdo way fiican tahay aad baa idin salaamaya dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu